waxay ahayd arin ugubah qof waliba waxay ku noqoto filiwaa kadib markii degmooyinka Hodan Howlwadaag warta nabadda dadka ku nool ay ku soo baraarugeen muuqaalil qabadkooda xeen xoolo ida ah isla markaana dhammaantooda qoorta ka bireysna wadooyinka degmooyinka aan soo tilmaamay ayaa lagu soo daadiyay xoolahan oo qaarkood jawaano ay ku jireen baraaruga dadka ayaa ku soo koobmay afqabad qof kasta ruuxa u dhow ayuu weydiinayay su'aalo la xiriira xaaladani si aan ugu kuurgalno xaaladda waxaan socod dheer ku soo marnay aniga iyo koox wariyaal Kalsan TV ka wada tirsan xaafadaha lagu arkay idaha qoorta laga wada bireeyay ee la soo dhigay degmooyinka Muqdisho qaarkood dadka qaar oo aan la kulanay ayaa sidani ku waramay saaka waxa degmada Howlwadaag ka dhacay dhacdo la yaab leh oo ku soo waabarisanay hurdada hadii aan ka kacnay indhahaygu waxay arkeen ido oo Soomaaliya ah oo bibiraysan oo la soo dhigay jidcadooyinka jidcadaha oo degmada Howlwadaag kamid ah mid hal meel aan ku aragnay laba meel aan ku aragnay halna meel aan ku aragnay laba meel aan ku aragnay lix neef ah indheeda qabteen annaguna waa wax aan horan u jiri jirin degmada Howlwadaag hadeertaana aan ku aragno oo noo cusub marka Ilaahay subxaanahu qaadir aan ka magan galnay kulay wixii keenana Ilaahay weynaa waaxidka ayay u taala kulay anaga birta oo bireysnaay ayaan ku aragnay dhiikuma hoostooda meesha neef xoolaha lagu bireen kulay ayaga bireysana la keen kulay qoortooda waxay u jeedaa dhinaca salaada loo tukado haddaba ka warqabka iyo dareenka jawaab celin ay bixiyeen maamulada degmooyinka ayaa noqday in baaritaan lagu sameynayo arrinkani isla markaana dhinacooda arrin ugub ay ku tahay waa kan gudoomiyaha arrimaha bulshada degmada Howlwadaag Ibraahim Xasan Mataan oo TV-ga Kalsan ku codbaahsaday maanta taariikhdu tahay 15 bisha koowaad ee 2018 waxaan ku aragnay degmada Howlwadaag waxyaabo mucjiso ah oo aan hore u arkin ay kamid yihiin ari inta la soo qalay lugaha lagu soo xiray maxayde jawaano in la soo dhigay xal saqdi dhexe runtii waa arin mucjiso ah waan wax nagu cusub waqtidii hore way dhici jirtay waxyaabo bil aadamiga ay iska lagu sameeyo la soo dhigay laakiin wax xoolo ah inta la soo qalo oo la soo dhigo meel ka tirsan magaalada Muqdisho oo qaabkan oo kala waa markii nagu horeysay aragno arinta marka aragnayna kama mulhan waxaan sameeynay inaan aan isku ururino qolada nadaafadda oo yeerno oo aan waajibaadkii marka lahayd aan marsiinay oo aan intaan qaadnay oo meel isku geynay hadda waxaan ku guda jirnaa inaan u yeernay wasaaradda xoolaha si ay arimo baaritaan ugu sameeyaan inay xoolahan ku loogu talagalay inay ayaan ku oo kuwa xanuunsana oo markii inta suumo la qalay iyo in ku talagal loo qalay iyo caafimaadkooda taam hayeen ayaan hadda baaritaan ka sudnaa insha Allah taala baaritaankaas hadii alla yiraahdo wixii ka soo baxan insha Allah idaacadaha inaan la wadaagno ay la karjinaa Allah subhanahu wa ta'ala waxa ilaa hadda aan loogeen waxa sababtu u ah in xoolo ku dhow 50 neef oo ida ah isla markaana dhammaantood qoorta laga soo bireeyay la soo dhigo xaafado kamid ah degmooyinka gobolka Banaadir Sharmaake Maxamuud Xuseen Kalsan TV Muqdisho